الحديث 38 حديث كالصدن يسديد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكورينيه قال النبي يري أعطيت وحليسي 5 شن لم يعطهن لمسين شنتاس أحد قفن قبلي أن يقري نصرت والله قرقاري بالرعب أرقح جرين مسيرة الشهر بالله صعده وجعلت وحلقي لي عنك وحلقي على الأرض لك وحلقي قدق مسجدا مساجد وطهورا كظهر قادش فأيما رجل الله على ننك ومن أمتي أمضي إذا كمده أدركته أي سوق الصلاة صلاة فليصليها تكدو وأحلت ولي حلالي لي عنك المغانم غنموينك ولم تحل الله ما حلالين لأحد قبلي أحد قهر ريان الله ما حلالين وأعطيت وحليسي الشفاعة شفاعة الكبرى وكان النبي وحانشر يبعث مثل رسول صار إلى قومه تلكي خاصة أقارة وبعثت عنك والله صار إلى الناس كافة أنا ضدكو دنبا الله صار نبي عليه الصلاة والسلام وحليه أعطيت وحليسي 5 شن لم يعطهن لمسين أحد قبلي أحد يهري نبي يهري لمسين باولي النبي عليه الصلاة والسلام بعدين أعطيت وحليسي 5 شن لم يعطهن لمسين أحد قبلي نبي يهري لمسين إسكت داومتك هريس النبي شنت وامحي تكواد وحوي نصرت بالرعب نصرت وحل يقو قرقاري بالرعب أرقح جلين إن عدويقه مركي ميل بالله صوص أي مريان أيابا أرقح لقول هذا أيابا النبي عليه السلام نصرت وحل يقو قرقاري بالرعب أرقح جلين يعبس جلين هذا يقول العبس جلين مسيرة الشهر إن بالله صعد العبس جلين markay nabiga u soo jirsadaan bil in loo socdo ayaaba la cabsi gelinaya baqayaanba taswata koobaad وجعلت لي وحلا يغيلي الارض دلكينا مسجدا مساجد با لا iga dhigay wadahuran ummadii hore ma lahayn meelo gaar ah ay lahaayeen ay ku cibaadaystaan laakiin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay anigu waxa ummadada laga dhigay meel walba waxa looga dhigay masaajid هل الله هلك سلادك وجسوا قادو أو مساجدنا وسنكر دوين واتكتو كنيسة وحيد مليل قارك الله تلمامي يعني ملا قشك قد فتم كتو كنيسة مليش ذاك وجعلت وحلقي لي يعني قال الأرض لك مسجدا والظهورا وتعيد له ظهر قاضني فإن لم تجدوا مال هدا بيويدان عيده قوي بيسأل ليه فأيما رجل نن الله ننكي أو من أمتي أمضي إذا كمد أدركته أي سوغاد الصلاة فليصليها تكد وأحلت لي وحلي حلالي النبي يقول المغانم غنيمة وحوي قال الله لدى قال لمي حنتد الله قفرته على هذا وغنيمة أمضي هراء أمبنانين markay dagaal galaan oo gaalo la dagaalamaan hantida ay ka furtaan meel baa lagu ururin jiray dabba xagga sare uga iman jiray dabkaas uu soo socdo wixii ururiyeen mucunaya iyagu sama taaban karaan waxa jiray nabiyada kamid ah oo duulay ciidankiisa duulay qaniimay soo furteen markaa qaniimadii ay soo furteen raggii dagaalamayay mid kamid ah xoogaa hoosta geliyay xogaa baqarsada wixii markii la ururiyay meel la dhigay dabki waa soo degi waay waa cuni waay nabigu wuxuu yidhi qoladii dagaalamaysa intuu isugu wada yeedhay reer walba nin ha soo saaro وبايعها محمد مبايعها هي لقلو بيعها هي لقلو هي قان قاضي
marka ciidankii dagaalamayay reer walba nin bay soo saareen rag badan baa meeshii markaa yimi nin walba nabigu waa gacan qaadaya si uu gacan qaadayay bay nin gacantii nabiga ku dhigtay markaasuu yidhi adiga reerkiina oo dhan soo wada saar buu yidhi dhammaantood waan gacan qaadayaa buu yidhi ninkii gacanteeda ku dhegto ninkaas alaabta haya dadka waa la iska fasaxa reerkii markaa ciidanka halkaa joogay ama raaska ama qabiilka ahaa baa nabigu wada gacan qaaday nin baa gacanta nabiga ku dhegtay alaabta keen buu yidhi adaa hoska dhiibka sameeye markaasuu soo saaray alaabtii markaasaa meeshii la geeyey dabkii markaasuu soo dego alaabta cunay marka haniimooyinku uma bannaanayn laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay wa uxillat lii aniga waxaa lay xalaaleeyey almaghaanimu haniimadii walam taxilla xalaalo ma ahayn liaxadin qofna oo qabli aniga iga horreeyey qof iga horreeya uma bannaanayn wa ucdiitu shafaacata shafaaca laysiiyey wa shafaacatu lkubraa waa ogtihiin qiyaamaha nebi walba waa qaylinaya dadku marba cadceed halkaa la keenaya dadku marba dhinac ba u yaacayaan ilaa nebi aadan baa nebi walba wuxuu leeyahay nafsi nafsi nebi hebel u tag ilaa nebi maxamed loo yimaada calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed intuu dhaqaaqo oo ilaahay hortagu sujuud la dhacaya markaasaa ilaahay leeyahay madaxaaga kor u qaad ee weydii waxaad doonayso wa kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yubcathu mid lala soo saaray ilaa qowmihi tolki khaasatan u gaar ah nebiyadii hore waxay ahaayeen nebi walba ciddiisaa loo dirayay soo ma aha iyo reerkiisaa loo dirayay soo ma aha wa kaana annabiyu yubcath nebigu wuxuu ahaa mid lala soo saaray ilaa qowmihi qoomkii loo diro khaasatan reerkiisumaa loo dirayay wa bucithtu aniga waxaa lay soo saaraa nebigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam ila annaasi kaafa aniga qabiilkayga reerkayga layma soo dirine ummadoo dhan baa lay soo saaray wey adduunkaa wixii ku nool baa nebi maxamed loo soo diray calayhi salaatu wasalaam waqti ma hadha